13 calaamad oo kuu sheegaya in borotiinkaagu uu aad u hooseeyo ama aadan helin borotiin kugu filan. Midda koowaad, murqahaaga oo isdhima. Waana calaamadda ugu horeysa ee caddaynaysa in aadan haysan borotiin kugu filan. Jirka hadduusan helin borotiin ku filan, wuxuu borotiinka ka soo qaataa murqaheena. Sidaas aawadeed waxaa isdhimaya murqaha. Calaamadda labaad, xanuun inuu qofka dareemo. Badanaa wuxuu dareemaa markii oo aalamiito uu sameeyo ama waxyaabo shaqo uu qabto kale in murqaha xanuun oo ka dareemo iyo kala goosyada xanuun oo ka dareemo. Sababtuna waxay tahay hadduu borotiinka aad ugu yaryahay jirka wuxuu borotiinka raadinayaa murqaha. Murqihii haddii borotiin laga soo qaadanay, markaas waxaa dhacayo in murqihii hadhoodii xanuun aad ka dareento. Calaamadda saddexaad, in uu qofka baahi dareemo. Markasta in uu baahi dareemo. Calaamadda afraad, hurdada in ay ku adkaato. Qofka uu hurdi waayo badanaa. Calaamadda shanaad, qofka borotiinka ku yaryahay waxa u nugul yahay ama oo u fudud in uu jabo badanaa lafihiisa. Calaamadda lixaad, madax xanuun. Qofku wuxuu dareemayaa markasta madax xanuun. Calaamadda toddobaad, qofku borotiinka marka uu ku yaryahay tintiisoo kale in ay jilaacdo awooddeeda, ay markuu shalaysanayo kale ee soo gogo'do, cijiyihiisa ay jeexjeexmaan, garaafo ay yeeshaan, maqaarkiisa dhibaatooyin dhanka maqaarka ay soo wajahaan, nabro, fifinan, waxyaabahaas inay ka soo baxaan. Calaamadda sideedaad, barar. Badanaa wuxuu ka bararaa cagaha, lugaha, gacmaha iyo caloosha. Calaamadda sagaalaad, qofka borotiinka ku yaryahay markasta wuxuu dareemayaa jilicsanaan, awood yari, tabardarri oo joogta. Calaamadda 10aad, in ay hoos u dhac ku timaado. Dheefshiidka shaqadii oo qaban jiray inay hoos u dhac ku timaado. Calaamadda 11aad, difaaca jirka qofka borotiinka uu ku yaryahay waxaa hoos u dhacayo difaaca jirkiisa. Markaas waxaa ku dhici kara cudurrada infekshanno ayaa ku dhici kara. Markasta qofkaas waxaa soo wajahayo xanuuno joogta. Calaamadda 12aad, qofka marka uu ku yaryahay borotiinka waxaa soo wajahayo in niyadiisa ay isbedbedesho, tamartiisana ay ahaan weyso balansad ama markasta joogto isbedbedel badan ku dhaco. Badanaa taasi waxay ku dhacdaa maamooyinka uurka leh iyo kuwa markaas hadda dhow dhalay oo aanan helin ama aanan cunin cuntooyin borotiin leh. Calaamadda 13aad, qofka uu borotiinku ku yaryahay marka uu dhaawac gaaro, aad bay u yar tahay in uu dhaqsi dhaawaca ka soo kabto. Waqti dheer ayay ku qaadanaysaa. Sababtoo ah waxaa jirkiisa ku yar borotiinadii caawin lahaa raysashada nabarka.